haysata ummadda Soomaaliyeed waxaan doonayaa halka kan inaan ka idhaahdo binshaaro inaan soo jeediyo ummadda Soomaaliyeed waxaasina waxaan iska alifay maaha waa wuxuu Ilaahay ugu ogyahay lacaleena daragtaan biidnillahna waa arki doontaan ta ugu horreysay waxa weeyaan roobkii xamar iyo hareerahayga ka daay waa bilow waxaa iman doona biidnillah roob weyn oo mahiigaana oo arlada Soomaaliyeed qariya roobkaasina wuxuu inaga meeyri doonaa xumaanta iyo dhiigga cudurrada iyo sunka ayuu ka meeyri doonaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed qalbiga iyo nafta waa raxmad waa roob raxmada ayaa ku bogsan doona qalbiga ku caafimaad doona aqliga mugdigu uu ka bixi doona oo nuur heli doona biidnillah inta ka gadaal ilaahay fadligiisa dad iyo duunyo waa la doogsan doona waxa la arki Soomaali dib u magoosho waxa la arki Soomaali intii la isnacsiiyay boqolkeed isjeclaata oo bogays galisa oo xabada la xoolaha kala goosata ayaa la arki doona biidnillah waxaan ugu binshaareynayaa labada ummada Soomaaliyeed 2014 bisha July waa ugu dambaysa dhibaato haday qaar rabaan inay Ilaahay iska keen dhigaan oo ay qoondeeyeen dadka Soomaaliyeed inuu duugmo Ilaahay baa talada isaga amar kana leh 2014 bisha July baa dhibaatadu Soomaali ugu dambeyn doonta gabi ahaanteeda Ilaahay fadligiisa tasaddexaad waxa weeyaan 3 sano dabadeed 2017 wixii aad soo martay Soomaaliyeed hawaawi xun oo aad ka toostay ilowday buu noqon doona dalkuna waa dhismi doona dawlad weyn oo Soomaaliyeed oo aan dib dambe u dubin way dhalan doontaa biidnillah intaasi waa bishaaro